صهيوني انت صهيوني نقول انا صومالي بانا هي اي دلاي او يقول قدس نبي على اسرائيل له صومالينا كبحصو اي دلاي بان كله qarannimadu qiimaha ummaday ilaalisa qiimaha ugu weyn waa ardiga iyo iimaankooda laakiin qabiil dawlad noqon waa iyagoo qodobka koobaad loogu qoray dadka containerka lagu qufleeyo juhalada ee darxumaysan loogu qoray wax kasto diinta islaamka ka hor imanayuu Netanyahu maanta hortooda ka leeyay yaani dadkii koobaad ee si degdeg ah noo aqoonsadabaati ee dib noogu celiya qarnigii nabi Daawud David سليمان إلى أبيه عليه السلام وناقون صدا مجالده قدس تذكر كلامنا يكون أتكاطي تانا والدين كم هاد عدينينا سريع نجا اعتراف نصوص صدا إسقى يو اعترافين كتابك إلهي إنه طورة الطورة أي مرخات الله ضحي إسقى بابا هم بليين يا أنا اللي يدبر بين قبيل دولة نقوي دولة نقوة أكو أساك أنتو دتكو دي كحية كونتينر كير كتيري يدي ساكا واحد صابح إنه بيت المقدس لكن هذا الكلمة إياه نعلة الله عليك حتى يوم الدين هذا الوار حاتري ولكو علي our capital it's only been the capital of vis-a-vis our capital it's only been the capital of our capital waxay haydun capitalka iyaga ama caasimadayadii qarnigii nabi Daawud 3,000 sano ay ka soo wareegeen Jewish people since King David that's only like King David oo nabi Daawud iyagu King David u yaqaana oo Suleymaan dhalay boqor Suleymaan oo dhaxaltooyada ka qaaday nabi Allah Suleymaan years ago so for some countries it's a belated recognition for some countries it was for you it was instant waxay ahayd inay noo ictiraafaan qudus caasimadahan waxadiida oo adag oo annaga nagu adag oo inagu adkeeyeen sidaan idin sheegayna waa saddex jasiiradood oo yar yar oo wuxuu soo helay ma aha xataa caalamkii caadiga ahaa ee tiisamka iyo secularka iyo masiixiga ahaa waxay soo heleen Honduras iyo Fiji iyo jasiiradaha yar yar ee meelaha ku yaala Guatemala iyo Kosovo iyo odaygii Donald Trump wala marka dawladaha kala xadiid baabay ku noqotay bir xataa Donald Trump ay waqti dheer naga qaatay inuu halkan keeno safaaradda
oo waqti dheer nagaga qaatay halkan inuu keeno safaaradda Israa'iil laakiin idinka buu leeyahay hadda halka inta dambe aad u dhigaysta video kale waa Facebook soo dhigo. And I very much welcome that, and I want to, for some countries it's a belated recognition, for you it was instant, and I very much welcome that. For you it was instant waxa la yiraahdaa degdeg. anagu bilaanu baan xaaladeeda aad u karkaranay daneenada waxbuu karkariyay waanu kala adeegnay isaga dacun baanu gelinay waanu ka adkaanay laakiin xaaladda hadda waa la bedelayaa wax Soomaaliyeed ma rabaan waa koofiyad yartiiba ka dambaysa siyaasaddaas de xasan baaba koofiyad yare wal adigu isku kidiraya maar anigu u malayn وكان يدك جيين جيرو والله مدسي جيرو السلام عليكم وعليكم السلام أنا سام بنارك جيرو لفتك حسن اللي وجهي ويدوي واحد محافظ بعض هذين حاجة اللي وجهي دي الله ربا أنا رئيس أنا وصعب كلمة أرت جيرو صور أرت جيرو إن أنا وأوجه هايو إن وحواي معارض كوجوين وقوي برياته دور برنا قول كجوات نجستو فوستا ريحي فوسطة الريح سنة حتى ما تقارد حلقة فوسطة للريحه حلقة آن للريحين وقتي إن وحلا قابك وحلا الريح ما تقارد معناه هذا أضيع أنا صوص سهرتي وأضيع دت كيسي لله يواي أما جرها لقول لا أما جردها لقول لا وأضيع دت أسي إسر آكس وجد لله يواي ما تبرك أضيع هاد إن فوسطة سيكون الرئيس واي وهذا جبت هواي أنا قف جورك هذا ما يمكتها ومد وتسا مد اللبات inaad dhahdo xasan sheekha faqashini soo diray oo faqashini dulmiya nagu laayeen taasna foosto kaloo ceeb kugu ah waay sababtoo ah dadkii laga laayay 30 qofood oo rag iyo dumar ay ku jiraan haddii adiga ama waqooyi bari ah u naxaysa sii jiritaankeeda iyo nidaamkeeda iyo waxeeda iyo micnaha iyo sida bini'aadamka iskula degaan iyo foostada meesha laga soo riixo annaga hadda u fahansannahay oo ekiska markaa tagto markaa Facebook tagto inta foosada garaagriis laakiin hadda dhado xasana ii soo diray nin ee faqashini ah oo xamara laga soo diray oo inuu wixii lay ah horta baash waa ka halad laakiin aniga ku xanaaqi maayo waxa tahay adiga waxa nin firdhiye mucaarad ku ah marka qaabka firdhiye ah mucaaradka ugu heeda ka qasan waxa fahmi karin dadkan dad ilaahay meesha ku abuuro waaye hadda 100 qof ka disho hadda 500 qof ka disho haddii aan 20 qof ka disho meeshoodu ilaahay ku baabi'i karaa soo guuri maayaan oo waa taariikh hadda ma oga daadhees anaga taariikh cusub dhigeynaaho dadkan waxa waaye inta baabi'inaan diyaarada soo saareenaa horreena laakiin waxa xaqiiqo ah inaad fuustada meesha u wada xasan sheekh adiga oo ka iska dhax aragtay xasan sheekh nidaam iyo system iyo wax lagu iyo meel lagu macaarado leeyahay laakiin in maanta dad adiga kula degan dhiigooda la saarad ama waqooyi bari dhax yaalo inaad dhahdo foosto la soo garaagiriyo xasan sheekha ka dambeey ina ayaga wax dilaan inaad ro shame of you ku taa ceeb weyn ku taa wallahi ceeb ku taa mina xilli wax waa la garaagiriya anaga foosto waa garaagirina waa riixna in meel waa u riixna laakiin xilliga iyo waqtiga iyo waayaha wax la riixaya kalmuusan xasan foosto ku riix mucaarada ku taa firdhiye foosto ku riix mucaarada ku taa laakiin tan foostadan aan riixayso aday isir ahaan ceeb ku taa dada ilma abtitihiin dada isdhasheen dada isla degtiin oo maanta meedkooda yaallo nin u hadlaa meesha soo saartay haddana waxaa dhehe ninkia waxaa laga soo diray taliyaha ciidanka qaranka soomaaliya wuxuu u soo laasacarood xasan muxuu ka faa'iida inuu nin faqashiri soo diro meeshan benefitka ugu jira maxay tahay in nin faqashiris la soo diro la dhaho laba noo dhulmaantaa inama jeerteena dil kadibna lo meesha boqooyi bari ha lagu kala kaco war boqooyi bari meesha laga weerarayo fahan adiga qabiilkaaga wado oo isirnimadaada jeclaaw laguguma haysto laakiin waxaa muhiima cudurka kaa gala fardaha haddii laga dawo dabaarada weli dawada lama helin fiiri cudurka haddii meesha uusan jirin aadan raadin walaalow foostadan haddii lasoo dhaandhiriine wallaahi oo bilaahi oo tallaahi dad magac leh oo Puntland dhex fadhiyo oo Hargeysa dhex fadhiyo ayaa hor soo dharaanaya waa hadii dharaandhis ay taa waay laakiin aniga xilliga aan ka hadlay xilligaas ba laakiin waxaan rabaa maadaama adiga meesha ay wax ka dhaceen adiga aad maamul ahaan ugu maafiiqan tahay dadki wax geysteen dadki adiga ay ka soo jeedo maanta waxaad laba shay ku furneed ama ina ummadaas u tacsiyeyso ama ina ka gaabsato laakiin ina inta qol soo furto
oo dadkiiba meedkooda u yaallo oo waxooda dhibaatada ku jira inta u tabarraacdo dhahdo maxaa la waa la soo diray xamaraa laga faqashina ceeb waa inaad dhahdo dad kula degan waa la soo diray dhahdo adee ceeb kugu tahay adee waxay kugu tahay sharaf dhac waxaa la rabaa marka waxaan in adeero ma isla ogolaan inay qalad yihiin mase isla ogolaan inay sax yihiin hadday qalad yihiin inaa isla ogolaan waxaan dadkan lagu laayay qalada lagu laayay waxwaa gaaray qalad ahaantooda lagaa rabaa inaa ugu hadasho laakiin inaad dhahdo fursada xasanaad soo dharaadhini xasanaad soo dharaadhini bakaari ribe sababta fadhiya la rabaa in wax kale baaree meesha maamula leedahay saanaga ognahay maamul waqooyi bariya leedahay waqooyi bariya laga rabaa inay dhahdo inta go'aan soo alaabtaan waxay nooga timid magaalada muqdisho mudgal waa ku dhegaystay moogta si xishmad la ku dhegaystay mudgal waa ku soo celisay 3 jeer baa ku soo celisay moogta intaa un baad ii sheegtay marka inta waa laga jawaabaya ما هل أراك وسوق الجبجبة وسوق الجبجبة هدي حسن سودر دني هدو سيد عبد القادر سودر دني هدو عير سودر دني أفكار فردية اللي جربها أسام ما عمركم تحوير مشكلة أنا كوسو دي وايح نيو هرتا إن قرشة صعداء وحرسن إنه يتهاي أنا أقول شيء يا في النهاية إنك جستي وحكش غيري دولة فتح عليك مالين كهر يملا مالما كهر أيو كيمي هرجيسة أنتوا قدوا هرجيسة وكسر لابت هيكل كاسي لوي كور وده شوية حتى إسكت واحد كله نمك ماشى كتيري قريها كل حد قال لما يجي دبعتي الجستي دبك الجستي نمن أبابلن أو ديارسن أو دولة فدرال وحكو أبتاي أنا هذا كله بهاي بري أنا كله hargeysana inuu ka yimi oo xamar tagay oo kadibna la sacnood yimina cadeynteeda lagu hayaa hadadu maanta lagu siiyo kow waxa fiyoyada beenta wada waa abgaal waa ku xasan u dhow ana hadda kule waxa andu fi cadeyta ka dhacay gubitaanka la gubay xilbaanada soo dhigay waa abgaal waxaan ku ugu horeeya ee fidnada ugu badan wada waa ku xasan u dhow waxa ugu badan ee faqashini iyo raba inay dadka deegaanka ku wada nool faqashini weligiiba deegaanka ku noolaa shalana hawiye muhay maanta ana kule waa niman annaga isdhalay oo dadkaygiya anaga dadkayaga wixii ma kala dhacay ama ku dhacay ama nimankii halka ay yimi fidnada la yimi iyo wixii dhacay annaga iska xal marinana annaga ka xisaabtamana weligood faqashini deegaanka waa ku noolaa ka badbadinta beenta propagandada kibirka ayda aflagaadada inta waxa wada waa idinka inta tiradan in leeg baa la idin dhahayaa dawladdaada mucaarad ku tahay dawladdeeda adigu iima sameyn maamulkayga adigu iima sameyn wiilal baa god u galay oo u dhintay oo aniga ah oo inamadaydiya kaftanna kuma iman xaabad buu ku yimi mid ku yimi caana booraya qasaciya maaha iyo ukun in la isku jabiyo kuma iman dhiig buu ku yimi dhiig buuna ku taagan yahay dhiig baana lagu ilaalinayaa in maanta la isku xiro oo propagandada laga dhigto waxaan ka dhicin deegaanka oo abubunisaan oo Twitter iyo meel walba la aadaan nimanka u shaqeynaya nimanka idinka hortaagnay waa idinka kuwa u adeegaya waa idinka kuwa aytamaya aflaga doonaya waa idinka kuwa faqashini maanta oo weligood deegaanka ku nool ka dhiganaya foostada oo raba inay tanaadi faqashini yo waa waray war faqashini annaga iska kindhow annaga dadkayga yiid hawiyahani waxa la sheegayay balabalaagay iyo waxa ma yaqaanaan waa dadkaygii hal meel aan ku wada abuuranay hal meel aan wada joognaa waana ehelkaygii dhibaatana waa dhici jirtay nimanka fidnada geystana niman deegaanka yimi bay ahaayeen habeen ka hor bayna dadka qaarkood laga sii saaray laamiga wadada cid kastana waa ogtahay nimanka dhibka geysanaya istaraatiiji inay ku socdeen maxaa keenay inuu intuu soo duulo hargeysa tago kadibna xamar ku laabto kadibna la sacnad yimaado maxaa keenay waxa annaga noogu sheekaynayna kuwa lambar 1 u ah oo dibka wadana waa idinka hawiya wada war annaga reerkan hawiya uma naqaanate reerkayga baan u naqaanaa laakiin annaga hawiya hadduu noo baahan yahay mudugna waa ku noolay galkacyana waa ku noolay xamarna waa ku noolay waanu joognaa waanu deganaa laakiin annaga faqashini hanaga dhiganay dad annaga dadkayagii weeye waa ehelkayagii deegaanka ku nool degan hanooga dhiginina annaga balaayo kale hanooga dhiginina inteedii ku soo gaban
idinku bareera anaa idiin sheegaya bareera annagaa shalay maamul ka dhignay aniga maamul igama dhigin annaga maamul namadi dhisin annagaaba dhib idinku qabnaba idinka celcelinanaba xabiibiya maalisa waxaadna siiseen iyo maamul aad noo dhisteen midna ma jiro war ma le maqlaa ها أنا فقسني عدو نوع ما دقي كرتان لكن إذا كنت أنت عليه ذهين شاكتا إذا كنت واحد أسعتان شاكتا أنا نوع بريرة إذا كنت قبيل عن نوع بريرة لكن فقسني وعطتك يجي وعيهلك يجي تيجا كودي نكسبين تيجا كودي تجي أنا قاعد هذا شلي بصور نلقشن بصور كشلي نلقشن يو كي شيء هذي ونوي والله غير مسكين كاي حسن كربورته أيضا أنا بلايس كاي دقيسان hubba idin siinay qoryaa idin keenay rasaas waxaan annaga aan nasiib baad nagu sheegateen annagaaba qoryo naga rabteenba waxaan nasiisan iyo waxaad noo keenteen wax dawladnimo ah oo la wada leeyahay xataa maaha waxanu waa dawlad qabiil leeyahay Soomaaliya dawladeedu waxay noqonaysaa dawlad sax ah oo la wada yeesho ama waxay noqonaysaa dawlad qabiil leeyahay ama dawlad sax ah oo caadi noqonaysaa fiqishin iyo lagu wareegin annaga runtii idin sheegnay lambar 1 kuwii aanu hortaagnayn baad u shaqeynaysaa ma cid kale waa adeegaysan kuwii aanu hortaagnayn oo ka dhex adeeganaynay oo lahayn war Soomaalinimada ilaaliya oo annaga dhexdeedii iska qabanaynay ayaa baad u adeegaysaanba Saciid Cabdullaahi Dali baa u shaqeynaysaanba sahnuuniyiin waaweyn oo yuhuud ah oo Ilaahay iyo umadiisa ka furaytay baatiin annaga hadda idin leh oo dawladnimo rabin oo nidaam rabin oo sharcinimo rabin oo ka adag inay ummadda islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed isku jibisatay yaa lagu wareegi faqashini annaga hadda idin birtid leh arnimankaas annaga hawiyo uma naqaano nagama aha waa dadka yagi tiga koodina joogan waligoodna joogin shalay markaanu galkacay imananay faqashini ma cirkay ku noolaayeen deegaanka ma joogin ay qabiil u noqon waayeen dadkayga baa la weeraraya maxay dhiwaa shalay daahir cali sooga ma taqeeyay social media u furayay waa waray maxamed kee saacadkay gabdhaha saacad gudaa midgaanka shalay soo kiilaa faqashini waa nima daarooda muulahayn saamulahayn shareerkan madoowe isikiisi dilay habar gidir muulahayn annaga faqashini nooguma gaban kartaan hawiyow waa inaad soo wada baxdaan noo bareedhaan iska siiya waxa naga heshaan waxba naga siinaa waxa naga heshaan annaga waxba naga siinaa laakiin ida waalid aydaaro aytataan oo meesha la soo istaagtaan dhaqan xumo iyo dad waaweyn waalidkooda la caado iyo idinka koofiyada wato ismoodaya war dad ismana le matidin dad isqabsada matidin dad waalan handikaabo oo aan waxba ka xishoon bateen wixii ma jartay ku arkay baad wadataan dad caadi ah anagu idin maleynayba oo sax balaayada dhan ee waxa ku ka daran baa kuwan is haysanaba waa idinkaba akbar cadowga koobaad hadda iska ilaalinayno waa idinka madaxweyne fardhiyo waxaan farayaa xamar inuu ka soo baxo xamar dawladnimo kama jirto dawladnimo wax la yiraahdo kama shaqeyn doonto waa in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ka soo baxaa ciidanka jooga meesha satellite-ka waa inay ka soo dareeraan waa inay ka soo baxaan dhulbaanta reer Falastiin way maqashay Soomaa waa inay ka soo dareeraan shalay ba anaga uba ku harnay daarad kale dhow waa kuwa lugahay ku dhiganaaba ciid kale kuma harin soo balaayada idinku meedu bilaabeen faqashini yaa lagu gabanay faqashini deegaankooda ku nool yihiin dhulbaantow satellite ku fadhiya meeshan dayax gabcaadka la leeyahay gantaalada la leeyahay waa laga diraya ka soo baxa inta fadhida habeen walba qoliyo geedi cabsan baan ku celinaa meesha sharci dawladnimo iyo nidaam mid ay garayaan ma jirto inta la idinku layn inta xamar joogtay soo baxa dino iska dhaaf dino hada dhaaf inaad dadka la daa iska dhaaf وكاد وحقبتك وكاد قراد إلى هذا البلوك هذا وحقبتك وقراد بليز ما يمغل ساتشير وقراد هرتواك السلام وضيقنا هرلي وان مغلي ما قرات ورما أضيقن بقى 2 مليون ولا 2 مليون حد بعنا كورس قراد وحرمنا ده وحرب إلى أن قوري كوش أرين كوش يا ما قرات أن قوري كوش وما قرات
ورتاس وحا كدرن تاس وحا كدرن بربغاندة إنا يرمي والله بالله تلاي horta balmuur gala horta balmuur gala أنا رنت الشيء يسيد هالمرنا ذر معانو walaalay macaanay dee meesha fawdo kama rabnay وقالنا سنة معلومة الدين هذا دين واحد يجعل له ولا دبا horta arrin baan rabaa horta bal wixii dhacay dadka wada waa dadka fadhiya dadka وروحس waxaa kugu daran hadda hoos fiiriso calamadii qaatuma inta la soo qaatay oo annaga la isku keenaysiiyay waxaa la leeyahay meel kasta waxa laga leeyahay barbagaando afartan la dilay صدنا على الدليل gabadha gabadha mustid maxaa dhacay دين ودا دين وقادنا سعودا horta exit كان كبخايا هل مركليان روا إنا هل أريده أنا عيال حمراء أو بكارة كل شبان كوم الشيء كفرت بالله بربغاندا بنتها انتهى ويفوست الجريحي إنه أنا نقصه كلا قبته ونقلها الله عرين أنا نلاقي كرد الراضي أو نلقي بربغاندا بيانا انت السماية ما تقانا إيش لسعانات meedadkii wiilashii dhintay waxaad inta la soo qaatay oo cad lagu duubay Facebook banaanka la wada keenay waana labada dhinac waxaas fuusada iska daba wareegayo dhan idinkana hawiya dhan iskuma raacsana hawiya dhan ha u dhamaaninina annaga xamar ka nimaanay hadii idinka reer waqooyin la mooday annaga kalaameeno meesha joogna si toosa xoogaa waxna la kala hara faqashini odayaashoodii xitaa ma ogeen nimankan soo galay oo dhibaatadaas geystay gabar uurla meesha ma faqashini waa dadkeeni faqashini anagu hawiyo inaad faqashini waa dadkeeni diini u daa faqashini waa dadkeeni hawiyo xamar jooga qofay riixaya faqashini ma hawiyo aan naqaana awal hawiyo maxay faqashini u raadsan waayeen marka anaga faqashini ay isdhalay isku dhamaanay أنا دايو رأي تور أنا هلو هذي السنقنا يا شكوين كقارفض أنا ما حناي أي عاقل أيه wareer ninka la yiraahdo Chiro waxaan rabaa 160 qof ku daawanaysa si wacan dhageyso ma garas anigu dalkii baan wacay arrinta waan indheeyay si wacan baan ugu kurgal horta habrii sharmuutooyinka ahaa ee fayraska ahaa iyo kuwii sakhraamiinta ee khamriga cabsanaaba horta arrinta buubuuninaya iyo kuwii aynu saynu u eriyay yahuudu gelinay iyo qolo ma garanaysaa munaafiqiin oo xoogaa magacii hawiye sidata horta baasha buubuuninaya horta arrintaas u faham ثانيا horta arrintu ma xasuusataa meel la lahaa hadda ka hor nimankina jaacseed ma degi kartaan faqsino idinkuna ma degi kartaan arrin lahaa horta baasha salka ku haysaa hase ahaatee niyo horta wiil yar oo qori la ordayo oo aan waxba maqlayn oo nina la tashanaynin horta wax kasta uu geystaa problem baa ka yimaada arrinta horta say u jirto iyo sida laga dhigayo maaha hadda uu reer suldaankeena suldaan Mustafa Awseed iyo garaadkii magarasa garaadkeeni garaad jaamac garaad Ismaaciil baa arrinta horta galay iyo rag odayaala maantana isimadii qayb kamid ah waa kuwii hadlayay uniyo horta bahasha waa sida laga dhigayo maaha nimanka fiqishini ma garanaysaa tolka aynu nahay garaad horta jambal baa jira horta waxa jambal baa la tuurayaa adiga laftirka garaad wixii waad fahansantahay hase ahaato nimankan hawiye markaad caydo inta loo dan leeyahay inta loo dan leeyahay waa inta ma garad waad fahanto waxa nimankan hawiye la hadlayaan ee lacagta loo siinayo ma garanaysaa waxa weeye ma garanaysaa inta nimanka mikrofoonka loogu dhiibo ma garanaysaa la oranayaa hadla waa waxa la doonaya inaynu inagu ka jawaab celino oo aynu nimanka hawiye aynu qoorta isla galno kaliya conflict oo dhexdeena horta ay arrintu ay dhacdo horta main agenda waa kaas anigu waxaan arrinta maanta aan soo sheegay waxaan war arrintaas intaysan fogaanin odayaashaasi ha galaan ilaahay amarkiisa 20 minute markuu muuqaalkii ku jiray baa waxa soo hadlay garaadkeeni sidoo kalena Mustafa Awseed iyo suldaankeeniina arrintii ma garanaysaa ay galeen iyo osimo hore oo garaad Soofa kamid yahay iyo garaadkii maanta hadlayay ay galeen maxaa dhacay marka nin horta xogaa soo baxaya ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cirro iyo ninkii la oran jiray ma garanaysaa kii xumaa midgaanka ay bidaha dani iyo tiimkiisii baa waxay wadaan fadqalalo wax la yiraahdo waxa kale oo jira niman hawiya
oo iyaga laftirkoodu ma garanaysaa bahashii dhinac ka khaldayo oo xoogaa bahasha xumaan ka dhigayo oo xoogaa waxay rabaan inay magaci hawiyana waa wataan waana qayb yaro dawaan yaro iska loo kala dawa inta qaaqlayaasheenoo kala marka garaad waxaan rabaa inaan laba arrimood bilaal bilshaawi dowladda federaalka soomaaliya xasan buu kala dhow yahay okay anaga ku soo diray inay foosta tahay waad og tahay oo waxyaabaha aan dhicin xataa ka dardaroowa ay samaynayaan fiir maxaa taas hadda qolkii daahir candho baa ka furan tahay intuu faqishiin iyo balaayo soo qabtay ee hadda abaabul wadaan aan dhamayna walaalle waxaan rabnaa marka dadkeena xaqiiqiga ka hortan inaad dadkeena dhulbahantaha dhibaata haysata hadda waxaan arkay nin baa qol saaran qol wuxuu saaran yahay mid xun mareexaan oo meelaan ka qaylqayliya qolkiisuu saaran yahay marka wuxuu taagan yahay jambal baa loo dhiibay inuu dadka dhulbaantuna weerar baadiye marka waxaa loo baahan yahay baasha jambalka in la fahmo ninkii wuxuu soo taagan yahay annagaa dilnay iyo waxnaga qaadi karay annaga dhulbahantaa waa sameyn wareedhe dhulbahan haya dhegeysta hortaas dhegeysano war niman yahow bahashu say u jirta maaha fiqishini 500 sannadood buu halkaa deganaa weligii iyo waaqii halkaasuu fiqishini deganaa inala ceesh ahaa wiil iyo aftigii aynu ahayn tol aynu ahayn wax kastoo ama janacsiyad ha dhex maraan ama qolo kale oo hagarkaas ama yaxyaha ama ugaaryahanka waxay doonaan fiqishini ha dhex maraane haddii fiqishini waxayna kala gaadhaan mahawiya inoo iman jiray madaarood ba inoo iman jiray miyana inagu dhexdeena dhamaysan jirin fiqishini miyuusan ahayn ninkii waxa weye systemka aynu wada dhisanay dowladda wada dhisanay ee walaalkeen ahaa miyuusan ahayn fiqishini maxaa looga dhigayaa waxa weeye ma garanaysaa niman aan la garanayno hadda soo korray maxaa looga dhigayaa ya fiir adiga laftarkaagu inaad ajendaa faataa garan so maya waxaan rabnaa walaalle horta aan isdhegeysan horta aan isdhege horta garaad arrin baa kuu sheegayaa horta niyahow oday soomaalian arag ma jeerteenoo 80 jir ahoo yidhaahda sidaasaa dhacday waa la ba'ayay hoogayay yidhaahda soomaal arag iyo kuwan yidhaahda waana la falaya hawiyana waa kana yidhaahda kow ثانيا soomaalian arag oday maaragtay isaaqaho intuu cabo khamriis ka soo cabo yidhaahda garowa xuduudda ingiriiska